goob ku taala magaalada Muqdisho duleedkeeda halka lagu magacaabo Jasiira rag ka shaqeynaya goob laga soo saaro ciidda ama loo yaqaan kaawo ayaa ay ku soo duntay halkii ay ka shaqeynayeen ku dhawaad 4 ka mid ah ragga shaqaalaha ayaa goobta ku geeriyooday halka mid kalena uu ku dhaawacmay ehelada dadka dhintay ayaa goobta isugu yimaaday kuwa dhaawacay oo qaarkood la sheegay in ay ka hoos mareen ciidda maadaama ay ku soo duntay meel aad buur u ah oo kamid ah meelaha laga qodo kaawada dadka ayaa gacan siinayay cagaf ayaa goobta tagtay si ay u soo badbaadiso dadka halkaas ku geeriyooday maahan markii ugu horeysay oo sidan oo kale ay qabsatay rag ka shaqeysta ama ka xoogsada kaawada oo ciidda ka soo saara halkaas si ay u eegayaan Muqdisho qayb kamid ah oo dadka ugu fushidaan guryaha ay dhisayaan iyo goobaha kale ay ayagu ugu talagaleen hase yeeshee raggan oo xirfadooda ay tahay mid aad u sareysa ayaa haddana marmarka qaar waxa dhacay shilal sidan oo kale oo ay ku soo rogmato kaawo ama goobtii ay ka shaqeynayeen oo god ah waxaana ka sareeya dhul maaragtay taag ah oo ciid kale oo hoosteeda ayay qodayaan saasi ay marmar ku soo gadoontaa oo shilka ku dhaca dawladda Soomaaliya ayaa laga codsaday in raggan maadaama xirfad ay leeyihiin in goobahaasi ay ka caawiso si qaab ahaan xoogaa inay u sameyso ama gooba badbaadina Allah ayaa wax badbaadiyay siyaasi ay ku dardaarmiyeen waxa leenahay 40 mitaal oo naxariista ragga dhaawacay Allah caafiyo idilaantii warbixintaasi waxa tan idin soo gudbinaya janalka Dooxa Media idilaantii waxa idin leeyahay waa mahadsantiin